bal fiiri qofaa soo fariisanaya maanta waxaan idiin hayaa sir fashilmatay horta kelmadda sir mataqaanaa maa micnaa sir maxay tahay markii la dhaho sir mataqaanaa sir maxaa loo dhaha horta waa wax la qariyin waaye sirta micnada mataqaanaa kelmadda sir maxaa waa sir yacni wax aan la ogolaan in aan la sheegin oo qof ama laba ay ku koobnaato bismillaahi raxmaani raxiim waan salaamay daawadayaal meel walba naga daawanaysaan maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan baraha bulshada waxaan arkaynaa inta badan dadka dunida jooga dhan way isticmaalaan baraha bulshada waxaana loo soo galaa baraha bulshada in laga helo macluumaad in ay saaxiibada isku salaamaan inay ku kala warqaataan dadka dunida ku nool oo idin waa kasta oo soo bariyo subax walba oo soo cusboonaata qofku wuxuu jecel yahay inuu wax cusub ogaado ama akhbaaraadka dunida ka dhacay in uu la socdo sidaas daraadeed ayaamahani waxaa soo badanaya in baraha bulshada loo isticmaalo qaab qaldan isticmaalka baraha bulshada ayaa waxaa loo fahmay in la isku caayaba in ay tahay in fariimo qaldan la isugu gudbiyo baraha bulshada isticmaalayeen meesha tani waa meel ay dadku idil isugu yimaadeen la isugumana imaanin in la daawado amaba la dhageysto aflagaado iyo cay iyo wixii la mid ah dadyooga dunida ku nool oo idil way isticmaalaan baraha bulshada laakiin iskama cayaan fahankii bulshada ayaa badankood wuxuu noqday in ay fariimo cay ama aflagaado ah isugu gudbiyaan baraha bulshada qof walba wuxuu haystaa telefoon yar oo kaamira ku xiran tahay beejkiisa ayuu soo fariisanayaa markii uu wax yar dareemo bartaas ayuu ka soo gudbinayaa wax walba oo maskaxdiisa ku soo dhaco marka ugu horeysa annaga waxaana dad muslim ah marka ugu horeysa annaga waxaana Soomaali sidoo kale waxaana dad Soomaali ah waxaynu leenahay dhaqan iyo caado soo jireen ah dadka Soomaalida dhaqan uma lahan intay meel fariistaan in ay caay isku soo tabiyaan dadka Soomaalida asal iyo farac uma lahan in ay shakhsi ama koox ay isku caayaan amaba ay isku aflagaadeeyaan waa wax laga xumaado waa wax laga xishoodo maanta in ragga ee gabdhihii walaalahooda ah aflagaado ugu gudbiyaan baraha bulshada waa wax laga xishoodo in dumarka wiilasha walaalahooda ah ay aflagaado ugu gudbiyaan baraha bulshada markii aad booqato goobaha ay bulshada ku kulmaan waxaad arkaysaa indhahaagu ay qabanayaan dad iscaynaya sidaas daraadeed ma ahan meesha tani meel caay loo soo raadsaday ma ahan waa meel loogu talagalay in lagu kala faa'iido qofba qofka kale waxa uu dheeryahay cilmi ahaan aqoon ahaan diin ahaan maadi ahaan intaba qof caan ah iyo qof aan caan ahayn qof la yaqaan iyo qof aan la aqoon intaba maanta dadkii waxaad moodaa badankooda in ay u hadlayaan si aan kontarool lahayn aflagaadada maanta aad duubtay ee aad soo gelisay baraha bulshada waa wax marqaati ka yaala waa taariikh ka duuban oo bari ay ilmahaagu daawanayaan haddii aad tahay qof dhalinyaro ah waa video qof walba oo ku yaqaan iyo qof aan ku aqoon intaba ay daawanayaan markii aad qof walaalka ah oo kugu diin ah oo kugu dhaqan oo kugu af ah aad aflagaado u soo gudbiso waa wax aad hadhowti ka qoomameyn doonto markii aad qofkaas heshiisaan waa shay aan inaba ku wanaagsaneen dhaqanka iyo hidaha suuban ee annaga aan leenahay Soomaalidu waxay wax u xaliyaan qaabo farsameysan oo qurux badan oo cajiib ah dadka Soomaalida waxaa lagu yaqaanaa in ay yihiin dad ku faana cisiga iyo sharaftooda qofka walaalka ah ee wax ka haleeyay qaabab kala duwan ayaad wax u xalin kartaa saaxiibkiis ayaad la hadli karaa ehelada qofkaas ayaad la xiriiri karaa dadka qof ugu dhow ayaad la xiriiri kartaa inta badan marka la bulshooyinka wax xaliyo Soomaalidu active ee ku tahay amaba caan ayay ku yihiin xalka marka la yiraahdo waagi hore geed baa la isku soo fariisan jiray waa la isku soo gogol fariisan jiray markii qof gar loo qabo alla ilaahay qofkaas garta loo qabana uu gar bixi jiray si akhlaaqaysan oo aadaabaysan tolka oo aysan faamiliyada kale aysan u ogaanin ayaa arintaas loo dhaqi jiray oo loo xalin jiray Soomaaliduna waxay ku mahmaadaa
gacmo geel jire hoos ayaa loo dhaqaa. yacni wax walba oo aad maqashay haddaad la soo istaagto bulshada dhexdeeda, wax walba oo aad aragtay haddii aad sheegto, bilaahi caleyka yaqi taas sharaf ma ahan. taas waa laga qurux badan yahay walaalahayga qiimaha iyo qaayaha iga mudan, taas waa laga qurux badan yahay, taas waa shay laga fiican yahay. meesha tani waa meel ay dhalinyaradii, caruurtii, dadkii waaweynaa, intaba dadkii aqoonta lahaa, dadkii aqoonta lahayn ay ku kulansan yihiin. waa meel wax lagu kala faa'iideeyo. fadlan yeesan jiilka soo koraya kaa faa'iidin in ay kaa bartaan aflagaada iyo cay iyo waxyaabo lamid ah. maanta annagoo dhaqan ahaan bulshada geeska Afrika ku nool aynu nahay bulshooyinka ugu qiimaha badan leh xagga dhaqanka Soomaalida markii la fiiriyo, ayaa waxaa ceeb nagu ah in maanta baraha bulshada inta isku soo fariisano kuusle kaasle saasa tiri kana tiri xaggaas aad xaggana aad waaga waxa ku qabto waaga halkaas ku sameeyay ana saan ku yeelay ana xaggaas ka soo sameeyay ana inta ka soo toosiyay kalarkaas ana kugu daray midkaas ana ka dhimay. xataa waxaa lumayso kalsoonida qofkani shalay uu kugu sheegtay sirta uu ku sheeganayo. bal fiiri qofaa soo fariisanaya maanta waxaan idiin hayaa sir fashilmatay. horta kelmadda sir ma taqaanaa ma macnaa sir? sir maxay tahay marka la dhaho sir? sir ma taqaanaa sir? sir maxaa loo dhahaa? horta waa wax la qariyo waaye. sirta macnaheeda ma taqaanaa? kelmadda sir maxaa waa sir? yacni wax aan la ogolaan in aan la sheegin oo qof ama laba ay ku koobnaato. qofkii shalay walaaltinimadii iyo kalsoonidii kugu siraystay ayaad banaanka la soo istaagtay. sir ayaa idin hayaa hebel sirtiisii oo la kashifay, hebel sirtiisii oo xaggaas ka dhacday. waa wax laga qurux badan yahay weeyaan. sirtii aan sii faafinaya qofba qof kale usii sheer gareenaya. yaa sir waa tii la qarin jiray. marka waxyaabaha soo cusboonaaday yacni maxaa tirahdaa dhaqamadan la soo kordhiyey, anshaxa ka fog, akhlaaqda ka fog, nidaamka ka fog. waxaan jeclahay walaalahayga qiimaha iyo qaayaha badan qof walba oo videogan daawado waxaan ka codsanayaa in uu la sii wadaago walaalihiis kale. markii aad wax tabanaysid eeba noqoto inaad wax tabatid, fadlan isdeji. haddii aad taagan tahay fariiso, haddii aad fadhisidna sii yara fariiso. yacni isdeji, maskaxiyan isku deji. blaceka iyo goobta aad joogtay haddii aadan ku qanacsanayn socod samee. meesha aad joogtid ka tag, jawiga bedel, meel kaleeta tag, badda aad, hawo soo qaado. haddii aad wadanka dibadiisa ku maqan tahay, meelaha darjiimooyinka iyo xadiiqadaha, yacni meelaha beeraha oo la isugu yimaado tag, jawiga dhan soo bedel. qol haddii aad ku jirto qolka ka soo bax, banaanka imow, neecaw qaado, 2 ragcac salaad sunno duko. halka ugu wanaagsan marka qofka bini aadan uu caroodo uu caradiisa uu ku damin karo ayaa waxay tahay fadlan weeseyso, 2 ragcac salaad sunno duko. waad xasilaysaa, si nafsiyan ah ayaad u xasilaysaa. xaqiiqo waay taas. markii aad dukatid ka tag meesha, marka socod samee, dhaqdhaqaaq samee, xarakaad samee, meel kaleeta tag. yacni haddaad gaari raaci karto gaari raac, hawo qaado, meel kale tag. yacni jawigii wuu isbedelayaa, caradii way kaa kala yaraanaysaa. halkii intaad qol intaad isku xirtad kaamira hor fariisato beejkaaga soo fariisan lahayd saana hebel iyiri xaggaasuu ahaa, waabaan asagoo qurac fadhiyo sharaac u fidiyey, waaba asagoo halkaasa masallo ugu galay, waabaan kursi u dhigay, waabaan galaas biyaa u daray, waabaan maxay tahay koob shaaxa aniga u shubay, waaba xaggaas ka dhacay. wixii aad samaysatay adigii ilaahaaga ajar allah kaa siiyo. khalaas waxba ha gocanin, waxba ha soo xasuusanin. waa idinkugu celinaya walaalahayga qiimaha iyo qaayaha inaga mudan, gabdhaheena sharafta badanna iyo wiilasheenaba. waxaa idinka codsanayaa haddii aad aragto qof caraysan oo baraha bulshada ku dhex jiro oo aflagaada ama waxyaabo kala sameynaya, fadlan ha faafinin, ku jooji halkaas. haddii aad carooto isdeji, qofka aad u carooto u samir. fiiri samirka الله سبحانه وتعالى قرآن كيس كريم كم حكيري إن الله مع الصابرين كوا سمره الله أيام معوذة إلهي أيا لجر سبحانه وتعالى يعني إنا سمرتد أيا بكوا نفسهم ماشي أتكع عين هاد أسمر خلاص سومالون محكومة هذا سمراء أيا ست هلا يعني قفك مكي أو سمره وحان أو كسمري وحكلا أو كوا نفسهم أو كقرب بدن أي الله سبحانه وتعالى سينا أما قفك وكرالي قلنا يا
ama إيشك محاترة إلهي بابا قلبي جاك كون ذي سبحانه وتعالى بس خلاص ماشي أوقتك ولا عليالو aynu bedelno dhaqankaani aad ku soo badanaya ee baraha bulshada inta la isku soo fariistay qof walba mobilkiisa yarka ay kaamiris intuu la kala baxo wax allaala wixii afkiisa uu karo uu sheegayo walaalayaal aan bedelno waa laga qurux badan yahay dhaqan ahaan waa laga fiican yahay dhaqan ahaan waa laga fiican yahay arintaas mana ahan arin wanaagsan mana ahan arin qurux badan waxa idinka codsanayaa meel walba aad joogtaan in aad waanisaan haddii aad aragtaan qof baraha bulshada waxay ugu gudbinayo qof kale walaalkiisa oo Soomaaliyeed kadib markaa arkay ee muuqaalo badan oo baraha bulshada ku jiro ayaan waxaan jeclaystay in aan ila wadaago fikirkayga ku aadan isticmaalka baraha bulshada faa'iido badan ay bulshadeena u leeyihiin oo macluumaad badan ay dadku kala socdaan sidaas daraadeed fadlan min fadlan walaalkaaga ha aflagaadeenin walaashaada ha aflagaadeenin dhaqankaaga Soomaalinimaha ku tumanin kan islaamnimaha ku tumanin waa ceeb waa wax laga fiican yahay sidaas daraadeed waxaan ilaaway in aan idin dhaho fadlan like saar subscribe dheh gablalka furo wixii adinkana fikirkiina ku aadan isticmaalka baraha bulshada fadlan commentiga igula soo wadaaga insha Allah hadii Ilaahay idmo waa mahadsantihiin soo dhawaada waa walaashin Aamina Macalin oo idin leh halis cafiyo waa walaashin Aamina Macalin Cabdullaahi oo idin leh yaa la iscaayin insha Allah hadii Ilaahay idmo mawduucan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaya hadii Allah subhanahu wa ta'ala ogolaado waxaan ku leeyahay iloobin like share comment subscribe ha iloobin please and please waad ku mahadsantahay daawashada mawduuca kan inteena mawduuc mid kala mid ku kulmi doono bye bye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh